runtii marka aan maqlo isliya qarax ka dhacay waxaan uga xanuunsadaa si aanan uga xanuunsan muqdisho ka dhacay markii la leena muqdisho waa baranay qaraxu inuu dhaco qariib ma ah maalintii muxuu ahay aniga la doortay maalintii ka laba ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya yimid dalka iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu soo dhiibo saas anoo soo taagan oo hadalkii soo dhaweynta ay wixii soo jeedinayna bug hadana qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan ku dhashay magaaladan ku barbaaray dugsi quraan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaa macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ah uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimadu ay tahay nabad sidii ahaan jirtay waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad walaal ah dad aan wax kale soo fiirin